سلام كدب وحروك علي فريتانكا وقرب معها ملا القف كي كوبادة الجفر بينه شيحو واتضح هذا الكمان تعالوا يشتغلني وعنيقة لا دحويني سلام كدب وحاولت كده بدل كسر بقولي سناك مع برس عم كي يو مايركي هوشي هول بدل ما تالي سناك لكن تعالوا وعم ببحري كنا ترى وحي هوشي نكلا إلى هذا سعيد عوين عارة مركا ظروف تلقوت شنو أرجعني هؤلاء إنه يلا كلا يجني أنا قلت كل يوم حلقة يا بحسد مدحون وحويجيو سكسو كيسان ويجينا ويسوق ده تي قرن بويجيا أنا حلقة يا بين ده أنت بدل كل بيت أنت تقول كيجا أنا قلت قرن كمان كتجي هذا كل عرفت زيده واحد كل بيت أنت هاي تقول marka la eego dadka maanta jooga laba qaybood bay noo qaybta xubina waa isku wada qolo wixii isla wax hagaajiyana waa isku qolo qarankeeduna maanta jirin daabiyo uma baahnayn alayhi nabiyullah Musa alayhi salaam ayaa ibliisu yimi markaasuu waxaan doonayaa inaan toobad keeno waadiga ilaahay la hadlay ولكن توبت كيران دونيا إلهي يسوي دين توبتين فرنت نبي موسى تجي إلهي الله عظيم تبدو حلو حتى لها حباشي آدم نبي الله آدم تقول سجود نبي موسى يسوي توب ولستين تايرون هالسمايو أو وحلو بحر محوين ما هي إن يربى لو بحر أنت أصله هالسمايو أي كل سنة نقضي إبليس ولا هروح أقول حباشي سجود واركايس كي ولا سكتي دلو كان ولا شيء أي أبدا سكتي واحد فهمه شو يقول يستين عبس بارو واحد سنة عبس كوكرة من الحلو هاي نقول واقع مركز جو حد كلام هل لدار هوايو أي أدي ترى لوسو بعن قامية أنت يضيع إن بدلوا كلام كلمة waxaan codsiyahaan madaxweynaha uranimi in caafin loo cafiyo oo ciidanka loo qarameeyo oo hubka la farsameeyo oo bartigiisa dambe waxa si naga wada dhamaadaan waxaan filaynaa kelmad qura madaxweynuhu yiraahdo ayuu waxa soo dhigo xireen waa qorshahay aan ku soconay madaxweyne haba aha inaan dalbano cadiska anagoo talada halkay dhaafi weydo marnaba aan diidanayn haddana waxaanu leenahay inta iyada waxaanu ku wada soconnaa iyo in badan oo wakiil ka ahay in kelmaddaasoo qura baa la yidhaahdo halkan gurigan aynu joogno waxaan marayaa waa markii saddexaad shirweyne aanu ku nimaadno madaxweyne waxaan ku xasuusinaya labada goole horeba waynu ku kala tagnay laakiin wax badan nagama raacin waxaan doonayaa hadalka inaan dul maro uun aanan hoosisii marka waxaan rajaynayaa inay maanta noqoto maalintii wax la raacayay intaa markaan ka tego على الحجاج بن يوسف أيام مركي ودي مريي إلهي مريي وهيلي اللهم اغفر لي فإن الناس يعتقدون فإنك لا تفعل إلهي ويدن بدار تذكر وحي ملايين يعني إلى السداء وحياة نسيه إلى السايلين تبدأ الروح يا مسيه madaxweynaha inaan cafiska bixinayne waxaan oran lahaa cafiska bix wixii aan dhaafin ragga kale odhan doona. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaani raxiim.
madaxda qaran iyo dhaqan iyo baamushtar iyo culimo iyo da' walbana isu timid aada iyo aad baan soo dhaweynayaa mar labaad waa soo dhaweynayaa shirkanan maanta fadhinaa wuxuu ka mid noqon doonaa bay ila tahay shirarka taariikhiga ah ee nabadda iyo horumarka dalka lagu urko intaasoo waayeela oo intaas dhan soo shaqeynaysay oo huba nin waliba inuu in badan u dib jiray oo caafimaadkooda qaar badan waxu dhimeen oo muddadaa ku fogday oo wuxuu shaydaan ka adeegay oo aanay ka talinin oo aanay ogoleen u taagla ee dhibaatooyin badan ku mutay ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu naga soo gabagaboobo oo aynu hello xalkiisa inoo wada jira dhammaanteen waxaynu doonaynaa xal qof walba halkan waxaan ogahay dhibaatada uu qof ahaan u qabo arrintan aad soo jeedseen marka hore waxaa inoo guddoonaa inaynu nabad qaadano oo nabad ka wada shaqeyno wax walba nabad aynu ku dhamayno waxaa inoo guddoonaa wax walba inaynu nabadda ka hormarino inagoo isu duuban oon kala sheegsanay arrinta dhibaatada sanaa ka jirta ee ciidankaasa laba qodob baa soo dhigteen mid wuxuu ahaa nabad baan wadnaa nabadda nala qabo iyadoo waa guddoono waa ka jawaabay ta ciidankaa timid saamaxaad baa soo jeedseen saamaxaadda madaxweynaha inta uu awoodinaya waa taqaana lama odhanin waa boqoroo wuxuu doono sharciga uu ka boodi karaa halkaasuu mari karaa saamaxaaddu wadday samaysay sharciyana oo loo maro aniga oo wax waloo nabad lagu helayo diyaar waha ogol wax wal oo nabad lagu helayaba anoo idinkala mid a haddana marna qof baan ahay hebelow adigu waxaa adag ka mas-uula qaba ah waxna waa lagula leeyahay oo adigu ma qaadan kartid hawsha inta anigu iyo xilka aan haya xilka madaxweynuhu uu ogol yahay een awooddeeda leeyahay waa qaadanayaa waa fulinaya waxaa igaga xidhan xeer qaranna waddadii lagu fili lahaa baynu wada doonayna oo anigu keligay aanan goyn karayn dhibaatada maanta ka jirta tiraada ciidankaa saamax ciidanku wuu kala qaybsamaa ciidanku waxay leeyihiin sharciyo gaara oo ka duwan xeerka madaniga shicibka lagu qaado laba maxkamadood baynu leedahay mid waxaa waa ta ciidanka midna waa ta madaniga ah xaalkeenna arrinta ku jirtaa waa arrin ciidan xeer ciidan bay martaa ciidamadu kuwa kale way ka duwan yihiin sharcigooduna wuxuu ilaaliyaa qarannimada ciidanku waa dad aynu isu geynay oo beela ka wada tirsan oo nin walba reerkiisa iyo isaguba sidaa adigu aa wadaan marka dembi dhaco odaygii soo kacayo oo lagu soo qayrinayo oo leeyahay inankii haloo gargaaro dembi uu galay hal dhaafo laakiin ciidamadu taa ma raaca maalin walba waxaa maqashaa nin ciidana xerada ka maqnaa maxkamadda la saaray dembi buu galay maxkamad kuwa kooyn baa la saaray taasi waxay ku eg tahay ciidamadu inay adkaadaan waayo haddii iminka qof gaari ka dhaco ama gaari jiiro bilowkana waa la xidhaa reeruhu isu yimaadaanoo iyagu maxalka gaara subaabka u xidhnaadaa waxaa la waa intaa maalin walba ciidamada qaranka waa la dilaa cadowga ma aha waxaad maqlaysaa nin buliisaa ku dhintay rabshad waxaad maqlaysaa nin ciidan nin xabad kaga fakatay odaygu ma soo dhex galo cid looma doono maxkamaddaa ciidamadaa la mariyaa xataa ilaa dilkiisa waa waxa ciidamada loogu seeyey markaa sharci gaar ahay wixii adugu aan awooddeeda tahay iyo xukumad ahaan kow ciidamada waxay u qabseen saraakiil iyo askar waa kala kiis inamada halkaa jooga sarkaalkaa sare ee magacowdeen ee hor jooga mooyaane intooda kale dhammaantood saacaddaa laga bilaabo wax alle wixii qaranku dambaysta waan ka saamaxay waana la saamaxaya waxaanay diyaar u yihiin galabtadaa in guddigii farsamo loo saaro ciidamada qaranka ka mid noqdaan toos sharcigaa iyo ogol laakiin saraakiisha sare ee hogaamiyaha gaashaamaha sare ee halkaa jooga maanta waxaynu u baahannahay inaad ii soo martaan sharci aan ku saamixi karo sharcigu wuxuu ogol yahay oo saamixi karaa marka dambiga intaa eeda intaa la joogto qofkii inuu xiran yahay oo dembigii uu qaatay uu xabsi ku jiro oo laga fikiro qofkii dembigana waa ka baxay waana ka cafiyintan oo suuga saamix awooddaa saamix qofkii dalka ma joogo 93 baa iga hortaagan awood keligay aad sarkaal sare oo ciidankiisa ka hor yimid aan keligay goyn kara hadday tahay intiina ma baan diideen wax walba waan siisan lahaa laakiin waxaana qaadi karay xaaji cabdow qodobka aad sheegaysaa iga hortaagan
maanta tiri baa iga hortaagan wuxuu leeyahay dadka isku hay oo qofka dembi gala dembigiisa baa ku qaban qati kale qofka dembi galay sheekh sida quraanka waad sheegtay da adalan ka buusaday ya ayad quraan aad sheegayso adigu awood ya ayuha alladina aamanu kunu qawamina bil qist walaw ala anfusikum aw al walidayn aw al aqrabin war qofku markuu dembi galo dee ku joogso jooji حتى هذو نفتاد هاي حتى هذو الوالد كاي هاي حتى هذو قرار لو كان قرية أو فقير أنا هركي بيتاكتر جاتك مدحونا تهددك وحق قرار شرعي اسكتاي وحمسون بالوين يعني أرجعني ساسان وارمري وحي شرعي بيوغلي هاي runtii waxa ilaahay baa mahad leh aadna waxaan u jecelahay inaan wax wanaagsan inoo noqdaan oo si fiican u dhacaan mudane madaxweyne si fiican baanu jawaabtaadii u garannay inta horta aad noo cafiday waa kaaga mahad celinay waxaanu ku leenahay jazaaka allahu khayr waana noo guddoon arrimuhu marba meel bay dee taagay waana laga yaabaa qof maalin kelmad u toosan inay maalin la qalloocato haddii qarankaa ka weyn qofka waxaanu aaminsannahay in qofka qaranku ka weyn bal waxaanu aaminsannahay wixii sharcigu yahay in qof walba ay dan u tahay wixii sharcigu yahay qof walba dan bay u tahay kaanu kaala hadlayno iyo annaga iyo adigaba dan bay u tahay haddii aanu dee qodobkaa ku wada soconnay muddana la waday dhowr kulanno ka dhacay maantana halkaa ay taagan tahay dee waxay la tahay mid waa jirtaa madaxweyneo anigu waxaan aaminsanahay oo tolkay ku leeh oo aanu adiga kugu leen oo anigu aan arkaya in maanta aanu qaadanno qodobkaa aad tiri inaanu qaadanno qodobkaa aad tidhi oo inankaas sida ugu sahlan maadaamaad ciidankii kale noo cafiday oo inoo cafiday ila waa wada leenahay aanu anana qodobkaa qaadanno waxaanu qabnaa oo ragga meesha ima wada muuqata inaynan maanta qabiyo wax ah halkan aynaan kala tegin marka koowaad waxaan la qabaa cawl faatax waan ku faraxsanahay cafiskaa guud ee uu siiyey dhallinyaradii iyo dadkii maaragtay dhallinyarada ahaa ee warka khaldan sidaa uu yidhaahdee loo sheegay cafiskaa guud waa soo dhaweynayna waana ku faraxsana halkan dee waxaa fadhida ergo badan oo reer ceergaabaha oo arrintaa danaynayey waxaan ku celinayaa mar labaad hadal caataay waa liid haddii qaranku uu soo jeediyey talo inkastoo aan maanta xusbi ahayn ee aan reer ceergaaboo doodayo ama nabadda aan raggii daadihinaya ka mid ahay waxa weeye go-aankaa waanu qaadanaynaa waxaanu u qaadanaynaa qaranka ayaanu wax ku leenahay qaranka ayaanu ka tirsannahay cabatiku waa meeshiisa waxaanu ku qanacsannahay inaanu kan kuwii dhisaynahay annagu kuwa doonayo kuraasida maanta halkaa la fadhiyo inaanu berrito fadhiisanno inaanu nahay baanu ku qanacsannahay oo ognahay insha allah ilaahay hadduu na gaadhsiiyo kullibana maanta madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisu maanta iyagaa nasiib u yeeshay inay halka fadhiyaan qarankana hogaamiyaan wixii qaranka dhib ku-ana inaanu ka wada tashanno oo aanu ka tala bixinno oo aanu qaadanno oo aanu weliba si qadhaadh u qaadannana waajib bay nagu tahay sababtoo ee wixii aanu la soconnay ee arrintaa cafiska ahayd haddii qaranku ka maagay waxa weeye sida ugu dhibta yar
waxay haddii laba dariiq isu soo kaa dhinac galaan waxaa la qaataa ka ugu dhibta yar leh waa dee wax diiniya kaamudana madaxweyne inkastoo aanu rag badan ishayno oo aanu isku hayno war dowladnimada iyo qarannimada iyo hala taageero oo hala wado oo hala dhiso haddana qodobkaa maanta si waxaan u qaadanaynaa si rasmi aan u qaadanaynaa sidii ugu dhibta yar ee arrintaa korneylka caare lagu xallili karana annaga iyo inta degaanka ah iyo intiina kale ee madaxda qaranka ah iyo taakuladooda ayay noo taallaa waana qaadanaynaa. waxa la yidhi haddaad sidaad jeceshahay weydo dee sidaad ka maarmi weydo waa inaad yeeshaa. allayla maanta waxaanu jeclayn iyadoo labeentii reerka ku hor fadhiyaan inaad tiraahdo kaxaysta aqbalay aad baan u jeclayn laakiin sharciga waxbaad noola baydheeyo distooriya waxbaad nala qabatay. carabtuna waxay tiraahdaa alwasta fooqa alqaanuun taa inaad noo egtaabe wastadu waa ka sarreysaa qaanuunka ayay nimanka yaahdaan carabtu. waxaanu lahayn maanta alwasta fooqa alqaanuun inaad wadaaban duray dee nagu diiday wax badan adoo xeerinaya. kollay intayadan aqbalka tiri waanu yeelnay iga horreeyey anna aqbalay mur hadday ka qadhaadhaanayso raggii iga horreeyey waddaday jeexeen ayaan kula shaqaynayaa kuna raacay. insha allah waxaan rajaynaya inay guul ku dhammaato biidni illah alkariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ده وراء الله شيء هذا يسكبن لكن رجل أورنا يوم كل حسنا يوم حلول لها. وهذه الحكومة عقل جدا اللي كوكل بدال ويجي اللي كاين اللي كوكل بدال اللي أنا كاسر في الكوك علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا كل هذا أرنتي نتيجة جوان كذا. وأنا كنت دال إلى سيدا أبدوجي دونسي أنا كنا ميسرنا أو كسو قادنا أرين أنا لقينا كري وأنا شعر هاي تذكر الصومالية سفي عنه نوضة يقالوا الترجمات دي سوا كعبك مركورة لكن أرين تدين في جوامسي وإنه عطيه وأنا كل قاعدة أرين كاسي وأنا كنت أقول كذي أريكاس أريك دب لوجر نقضوها ما السيدة أكون بالليل ودحوينا إيو waxaan aad iyo aad ka mahadnaqaya odayaashiina waayeelka ee 2 sano 4 sano dhow intaa soo jiray ee intaa wanaag doonay ee kolba shaydaan ka adeegaya inta la kala tuuro haddana eedda iyo dhibaatada la saaray anugu wanaagga oo socotaan maanta inuu halka kaga tareynay in badan oo sharka jecel ay balaay ka sheegi doonto adkaysiga iyo garashada dadka qaran raacdeen aad iyo aad baan ka mahadnaqaya qarankuna waa idin ogyahay annaga xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan waa loo guddoon iyo ragna la dhisay qarankii oo wax ku adag qaatay taas uu baan ku dhisma karaa waxay u adkaanayaan waxa weeye dadka ka dambeeya maamushaan dhaqan ahaan suldaan caaqil oo wax badan oo macquul ahayn xasaasiyadu la kiciyay waxaan u helay dhibaatada jirta taa usoo badheynaya toorada waa idinka mahadnaqaya cid waloo dhibaato la soo gudboonaatana inay saa yeesho oo danta qaranka ka horsanta kale ayaa tusaale u noqonaysaa suldaan maxamed oo uga mahadnaqayaa oo hadduu yidhi waa dowladda haddii hadday soo taagtayna waan qaadan dee qarankii baanu eegaynay ilaa anagu qol ahaan waxba umanaa cadaadinayna inaad qarankii nala eegteenna waa idinka mahadnaqayna halkaanu qaadanay intaa aada qaateen waa idinla xajirayna dowlad ahaan meel kaloo lagu wargano nabad in lagu guntado la isdul qaatana garan mayno waanu idinla garabgaraynaa hagrashana waa naga wada